okay waxaa u baahan tahay marka computerkan inuu bing garayo computerkaas kan inuu soo bing garayo kan sababtoo ah fiiladaas markii la isticmaalo fiilada la isticmaalo IP address MAC addresska wuxuu ku xareysmi doonaa waxaa loo yaqaan CAM ama content addressable memory switchka marka halkaan ku dhufanaysaa waxaa leedahay halkaan waxaa ku jira IP addresska aan siinay CMD tag waxaa leedahay bing 192.168.1.4 ayaa bing garaynaya okay bing garay kanaan leeyahay haddana waxaan bing garaynayaa 2 ayaa bing garaynaya waxaan leeyahay bing 192.168.1.2 way taas macnaheedu wuxuu yahay marka labadii device si normal ah ayay u sheekaysanayaan successful way ayay halkaa imaaw waxaan rabaa haddana inaan soo saaro waxaan soo saarayaa MAC addresska show MAC address table haye waxaan hayaa laba fiilo MAC addressyadooda iyo noocooda uu yahay dynamic soo ma way waxaan rabaa marka inaan xiro fiilada loo yaqaano fiilada fast ethernet 01 ayaan rabaa inaan qof kale uusan isticmaalin halkaan kiro isticmaalo way waxaan leeyahay enable waxaan leeyahay configuration terminal okay inta markaan joogo waxaan u yeerayaa fiilada ama interface waxaan leeyahay fiilada la yiraahdo interface inta waa dhigi karaa interface waa dhigi karaa fiilada la yiraahdo fast ethernet 01 ayaa u baahana fiilada marka waa access mode inaad gelisid xaalad lagu bedeli karo marka waxaan leeyahay switch port mode access okay waa bedel xaaladda macnaha waxaan ka dhigay xaalad la access garayn karo waxaan leeyahay haddana port security aan xirayaa marka waxaan leeyahay switch porti macnaha portigaan fiiladaan isticmaalo switchkan portigiisaan waxaad u bedeshaa switch porti haye porti security port security okay waa ogoleysiis switch porti waxaan leeyahay maximum waxaan u ogolaanayaa hal keliya waxaan leeyahay switch porti waxaan ku xiraa MAC address MAC addresska out fiilada koowaad waa kana soo copy halkaas waxaa leedahay copy imaaw bastide space bast exit waaye switch porti port security haddii fiil IP MAC addresskaas MAC address aanan ahayn uu kusoo xirin muxuu sameynaa violation waxaan ka dhigayaa violation wuxuu noqon karaa restrict wuxuu noqon karaa deny wuxuu noqon karaa wax loo yaqaano shut down marka waxaan leeyahay shut down waayahay iskaga bax marka intaas waay control Z fiilada fiiri xaaladeeda ogo marka show porti security ay fiiladaas xiran okay waa kaas fiilada xiran tahay fiiladu yeer show port security interface fast ethernet 01 ay waa enable security app shut down hal MAC address configured MAC address waa isku dhamaatay waaye fiiladii kanaan ka qaaday waxaan ku xirayaa ninkii hackerka sababtoo ah gudkan computerka waa baxay mid kale imaado uu ku xirtay soo daar marka cagaar soo shido
markuu cagaar soo shido hackerka wuxuu isku dayaa inuu ping garayo computerka kale oo IP address 4 ah markuu ping garayo automatically fiilas inay danto waay inaa violation maxaa ka dhignay shutdown way aan fiirina marka waxaan sugayaa negotiation waa dhamaaday cagaar u shiday halkaana imaanayaa waxaan leeyahay desktop command promptiga ping 192.168.1.4 okay koryo sort violation waa gaari lahayd sababtoo ah marka laan ku celiyo kan IP address ma sii yes kan IP address 192.168.1.1 waaye ku laabano automatically fiilada maxay sameysay way isdamis automatically fiiladii way isdaminaysaa waayahay aan ka soo celiyay fiilada halkaana keenay sababtoo fiilada markay danto waxaa u baahan tahay inaad soo shidid hadda halkaana tagaysaa waxaad tagaysaa configure terminal fiilada u yeeraysaa interface sababtoo ah switchka password ku xiri kartaa username soo waxaad xiri kartaa sidii waxaad u xirtay routerka oo kale marka fiiladan u yeerayaa fast ethernet waxaan leeyahay 01 waxaan leeyahay shutdown waxaan leeyahay haddana no shutdown fiilada waa shidanta okay markay shidanto haddana waa ku celinaya waxaa la rabaa automatically fiilaas mac address aanan haddayba aragto inay isdamiso okay halkaan tag dingrayfo soo jeed waa shaqaynaya hadduu shaqaynayo aye waa ka furay kanaan ku celinaya kan tag halkaan ku dhufo dingray marka laakiin marka hore waa inay soo daarantaa waa inay timaadaa ay soo daarantaa automatically maxaa dhacay wuu isdamiyey fiiladii automatically waa isdamis